بسم الله. سورة الفاتحة marka aad akhrinayno waxaan leenahay bismillaahi raxmaani raxiim. wax kasta oo aad bilaabayso waxaad ku bilaabaysaa bismillaahi raxmaani raxiim. tusaale ahaan dadka beeraha qota waxaan ognahay in ay miraha soo qaataan. haddaba mirahaas yaa abuuray? allah subxaanahu wa tacaala. ciidda ay wax ku dul beerayaan yaa abuuray? allah subxaanahu wa tacaala. biyaha ay ku dul shubayaan yaa keenay? allah subxaanahu wa tacaala. waxaa suurtagal ah gabadha ama ninka wax beeraya in ay cilmiga beeraha waxba ka aqoon. bani aadamka ma khasbi karo dhulka in uu miro kala soo baxo. markaa waxaad mar walba maceensanaynaa oo aan weydiisanaynaa inuu na caawiyo allah subxaanahu wa tacaala si dhulka barakadiisa aan u helno. marmarka qaarkood waxaad arkaysaa ilmo yar oo awr weyn hogaaminaya ama maroodiba. yaa u sakhiray? allah subxaanahu wa tacaala. haddana waxaan ognahay bani aadamku ma qaban karaan mas ama xayawaan aada uga yar awrka. ilaahay wuxuu noo sakhiray unbaan cuni karnaa, qaban karnaa ama hogaamin karnaa. haddaba bar ilmahaaga bismillaah oo u sheeg in ay barako ku jirto. bismillaah markaad tiraahdo 2 shay baad helaysaa oo aad u faa'iido badan. 2daa shay waxa weeyaan faa'iido adduunyo iyo tii aakhiro. markaad bismillaah oran weydo waxaad helaysaa faa'iido adduunyo oo aakhiro ku jirin. haddaba maxaan mar walba oranaynaa? bismillaahi raxmaani raxiim markaan wax bilaabayno.